dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dagaal siyaasadeed waxay ku bilowday heshiiska difaaca ee dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ay wada galeen waxaana xukuumadda Abu Dhabi la sheegay in si weyn uga xun tahay maraakiibta dagaalka Turkiga ee ku soo qulqulaya biyaha Soomaaliya iyo in Turkigu uu go'aansaday heshiiskaas in si dhab ah u fuliyo. waxaa dowladda Imaaraadka Carabta hadda xun xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Imaaraadku waxay joojiyeen dhaqaalihi ay ku taageeri jireen ciidamada booliis militariga kadib markii lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamadooda gudaha Soomaaliya. arrintaasina waxaa gabi ahaanba ay xurmaysay xiriirka labada dowladood iyadoo dowladdu ugu wareegtay dhinaca Sacuudi Carabiya bedelka Imaaraadkana ka dhigatay. dhanka kale waxaa soo baxayay bilihii la soo dhaafay xoga tibaaxaya in Abu Dhabi ay bilowday taageeridda dowladda Itoobiya isla markaana ay ku garab siinayso dagaalka siyaasadeed ee kula jirto dowladda federaalka Soomaaliya si ay xagal kale uga soo gasho dagaalka Muqdisho iyo Abu Dhabi xilligan ka dhaxaloosan ee siyaasadeed. Abu Dhabi intii uu jiray khilaafka siyaasadeed ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo intii heshiiskan doodiisu ay taagneed badda ay ku doonayso dowladda Itoobiya waxaa xukuumadda Addis Ababa ay faraqa ugu shubtay lacag dhan $3 bilyan qayb ka mid ah lacagtaas waxa ay Itoobiya ku soo iibsatay 2 diyaaradood oo nooca dagaalka kuwaas oo ay kala timid dhinaca Ruushka. waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in hadda ay qorsheynayso inay ku garab siiso in ay ku sii adkaysato dowladda Itoobiya heshiiska badda xilli ugu dambeyn Abiy Ahmed uu isdhiibay oo qorsheynayo inuu ka baxo arrintaas. hadda waxaa mar kale si weyn u soo faragelisay heshiiska difaaca ee fulintiisu ay bilaabatay waxaana ay sheegeen in qatar uu ku yahay marinka Baabul Mandab, Badda Cas iyo guud ahaan badweynta Hindiya labadaba. dhanka kale waxa ay bilowday xukuumadda Abu Dhabi furfuridda danaha Turkigu ka leeyahay Soomaaliya iyo in heshiiskan uu yahay mid ay Ankara ugu danaysanayso dowladda federaalka. معهد كدراسة السياسة إماراتيس بوليسي سنتر اللي يراهدو كاسيو فديسو يهي إمارات كعربتا أياد دابعي مقال وقفا لونايو هشيس كدينا الدفاع يدح مري صومالي تركيغا مقال كانوا سوين دونيدا قيبا كمدا لوغا أخريستي أيا وحا عوان لوغا ديغي هشيس كتركيغا صوماليا قوان قادشا لغا باران ديغي مسيد طلابا لو قادي ميل آن لاقون waxaa maqaalka lagu yiri heshiiska qaab-dhismeedka Turkiga iyo Soomaaliya ee iskaashiga militariga iyo dhaqaalaha ayaa ah mid aan horey loo arag marka loo eego heshiisyada Turkigu horey u la galay xukuumadda Muqdisho. isfahamka cusub ayaa waxa uu siiyay Ankara ku dhawaad awood maamul dhameystiran oo ay ku yeelanayso dhulka badda iyo cirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Emirates Policy Center ayaa qoray in heshiiskan uu Turkiga siinayo joogitaan military oo buuxa oo gudaha Soomaaliya ah ayna noqon karto fursad ay Ankara kula gorgortanto Mareykanka marka la isku yimaado miiska wada hadalka maadaama Soomaaliya awood dheeri ay ku leedahay. qodob kale oo la isku dul taagay warbixinta waxay ahayd gorgortan heer caalami ah. tani waxay saameyn ku yeelan kartaa baaxadda iskaashiga amaba khilaafka Ankara iyo Washington ee bariga dhexe ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah qormada wargeyskan uu daabacay. sida laga soo xigtay faaladan heshiiska militariga ee la balaariyay u dhaxeeya Ankara iyo Muqdisho ayaa caqabad ku noqon kara qorshaha Itoobiya ah in marin bad ay ka hesho Badda Cas. Soomaaliya ayaa si degdeg ah heshiiskan u gashay kadib markii Addis Ababa ay maamulka Somaliland la gashay heshiis ay ku doonayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya. marka laga eego qormada uu daabacay wargeyskan dhinaca isku filnaanta geeska Afrika, tani ayaa waxa ay ku qasbi kartaa Itoobiya inay u hoggaansanaato damaca iyo rabitaanka Turkiga si aysan caqabado ugula kulmin ayaa lagu yiri maqaalkan. si kastaba ha ahaatee Turkigu wuxuu aaminsan yahay in Addis Ababa ay mudnaanta siin doonto si wadida xiriirka wanaagsan Ankara iyada oo la eegayo khilaafka joogtada ah ee Masar waxaana taas ay Turkigu aaminsan yihiin inay burburin karto heshiiska Somaliland iyo sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa maqaalkan lagu sheegay. si kastaba waxa maqaalkan macadka fadhigiisu yahay magaalada Abu Dhabi ee Imaaraadka Carabta oo sidoo weyn uga faalooda arrimaha siyaasadda uu ku sheegay in Turkigu faa'iido badan uu ku qabo Soomaaliya isla markaana danaha ugu weyn uu ka leeyahay ay tahay in saldhig weyn ay u noqoto Soomaaliya oo geeska Afrika oo dhan uu kula dagaalamo dowladaha caalamka. waxaa sidoo kale maqaalka qayb ka mid ah Qatar looga muujiyay in arrintan saameyn ay ku yeelan karto Badda Cas iyo heshiiska Itoobiya ay la gashay maamulka gobolada waqooyi. si kastaba dowladda Imaaraadka Carabta waxaa dhankeeda ay si weyn ugu hanqaltaagaysaa in heshiiskan uu sii socdo si ay sare ugu qaado colaadinta ay ku hayso dowladda Soomaaliya
maadaama xiriirka labada dowladood meesha ugu hooseysay hadda uu gaaray oo dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo. Abudubai ay ka doorbiday dhinaca Sacuudi Carabiya oo heshiisyo muhiim ah dowladdu ay la soo gashay. Dowladda Imaaraadka Carabta waxay ka mid ahayd dowladihii cunaqabataynta siyaasadeed uu saaray madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo dalalka khaliijka oo dhan ka soo dhex xushay dowladda Qatar oo la aaminsan yahay in iyadu dhaqaale fara badan doorashadiisa ay ku bixisay. Waxaana inta xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya uu xumaa dhibaatooyin badan kala kulmay xukuumadda Abudubai, inkasta oo Soomaaliya dhankeeda dhaqaale fara badan ay ku weysay. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dib boorka uga jafay markii talada uu la wareegay heshiiska Abudubai iyo Muqdisho. waxaas hadda u muuqataa in mar kale uu gebi ahaanba burbur ku dhow yahay, maadaama tillaabooyinka ay qaaday xukuumadda Imaaraadka Carabta aysan taageeraynin rabitaanka Soomaaliya iyo danaheeda siyaasadeed toona.